Dhiirigelin. Dhiirigelintu waa sida cunto maskaxdaada la siinayo. Kaagama dhargaysid hal fadhi. Waa inaad ku noqnoqod ka badisaa. Dhiirigelintu waa dhaqaajiyaha naftaada. Waa ka sabab inuu noqdo inuu qofku uu qabto howl heerkeeda aad u sareeyo. Gaadsiyana natiijo aad u weyn. Waana furaha keena inuu qofku gaaro guul. Ogsoonow, gaariga ma socdo bilaa shidaal. Dadkuna waa sidoo kale guul ma gaaraan ilaa helaan dhaqaajiyay. Dhiirigelin haddaba dhaqaajiye nafeed waxaad ku heli kartaa adigoo naftaada tuso aragti fiican. Sidaa ayaad guul ku gaari kartaa. Dhiirigelintu waxaa ka mid ah inay dadku kugu dhiirigeliyaan. Inuu waalidka ku dhalay kugu dhiirigeliyo hankaaga iyo himlada, ama in aad ku naftaada isku dhiirigeliso wanaaga. Qofka bini'aadamka hadduu helo dhiirigelin iyo daryeel joogto ah, waxaan shaki ku jirin inuu nolosha guul ka gaari karo, kuna noolaado nolol farxad leh. Miyaadan isdhiirigelin karin? Sidee u samaysan lahayd dhiirigelin joogto ah? Haa, waad isdhiirigelin kartaa, waadna samayn kartaa adigoo adeegsanayo qodobadan. Naftaada ku kalsoonow. Waqti ka faa'iidayso. Warqad ku qor waxyaalaha ku dhiirigeliya. Dhagayso muxaadarooyinka kugu dhiirigeliya. Aragti fog yeelo. Naftaada adiga dhiirigeli adigoo adeegsanayo hadallo dhiirigelin ah. Kuna dheh waad guulaysan kartaa iyo wixii la mid ah. Ereyo dhiirigelin ah. Waad guulaysan kartaa. Ha cabsan. Waad kartaa. Waad baran kartaa. Isku day. Haliyey ayaa tahay. Way fududahay. Hormuud ayaa tahay. Waad ka soo bixi kartaa. Waad samayn kartaa. Hore u soco. Karti ayaad leedahay. Way dhib yar tahay. Adkayso.